دوريان كسر ولا غيرت إلى عطا راديو برارو ميديا يدا كردوان ورباهنتا برارو كجل كتان يدا كردوانك برارو ميديا iyo barnaamij.net oo aan soo gudbino waxa kale caadiga Soomaaliya iyo caalamka saaxiibada la ilaawina inaad ku dhufataan subscribe oo si la gareysaan inuu waqtan saaxiibadina wuxuu daarnaa kulanka dhexmaray madax dhaqameedka beesha Habayoonis iyo Muuse Biixi ee madaxtooyada aqalka magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kula qaatay madaxtooyada madax dhaqameed ay isku deegaan yihiin murashaxa madaxweynaha utaagan ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro kulankan oo ahaa mid aan warbaahinta la wadaagin ayaa ila wareediyo u xaqiijiyeen idaacadda radio Baraaru Media in laga wada hadlay sida ay suuragal u tahay in xilliga la furo ururada siyaasadeed markaana shirdoceedkaas Muuse Biixi Cabdi uu madaxtooyada Soomaaliland kula yeeshay madax dhaqameedkaas ayaa la sheegay in ay kaga wada hadleen sidii doorashadu xilligeeda ugu dhici lahayd iyo mowqifka taageero ee beesha Cabdiraxmaan Ciro u hayso madaxweyne Biixi inuu mar kale ku soo noqdo kursiga jagada madaxweynenimada ee Soomaaliland Siciid Sulub oo isaguna ka soo jeeda isla beesha murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa la sheegay inuu kulankaas madax dhaqameedka isla beeshiisa iyo Muuse Biixi uu isagu ka soo shaqeeyay iyaguna la dhacsanaayeen hogaaminta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wasiirada kamid ah wasiirka deegaanka iyo wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland lama oga qodobada dheeraadka ah ee ay ka wada hadleen balse kulankan ayaa ku soo beegmayay xilli laba qodob oo adag hor yaalaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi labada qodob oo kala ah inuu ururada siyaasadda furo taas oo dalka u horseedi doonta jiha cusub oo siyaasadeed isla markaana ay fursad heli doonaan siyaasiyiin miisaan culus qodobka labaad ayaa ah in doorashada madaxtooyada xilligeeda uu ku qabto waxaana weli madaxweyne Muuse Biixi damac kaga jira in uu shanta dambe ee dastuurku xaq u siiyay uu dib u soo noqdo isaga oo ka shidaal qaadanaya taageerada codeed ee uu ka helay beelaha Soomaaliland doorashadii hore oo beesha bariga magaalada gobolka Togdheer ee beesha Habarjeclo oo xilligaas Muuse Biixi Cabdi uu codkeeda inta badan uu qaatay ay iyaduna xilligan u muuqato mid farihiisa ka baxday ila wareegyada ayaa idaacadda radio Baraaru u sheegay in la xiriiday ayaa u xaqiijiyay in doorka damaca ugu weyn ee Muuse Biixi Cabdi uu rabo ay tahay inuu codka u doonto beeshiisa iyo beesha Garxajis oo iyaga ah kuwa musharaxa madaxweyne ka ah xisbiga mucaaradka ee wadani waa Cabdiraxmaan Ciro xogaas ayaa idaacadda radio Baraaru u sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu xilligan u dafacaydanaya ama uu hunguri ka hayo sidii uu mar labaad uu xagga codka isbaahaysi dhinaca beesha Habarwal iyo Garxajis uu kaga soo noqdo kursiga jagada madaxweynaha xisbiga talada haya ee kulmiye oo uu doonayo inuu mar labaad uu jagada codka beesha Garxajis uu Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku noqdo gaas ayaa tibaahay inuu doonayo inuu meesha ka saaro xisbiga mucaaradka ah ee wadani tabahaatee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa guud ahaan toddobaadadii hore ku hungoobay oo faramaran iska soo taagay kadib markii ay ku gacan saareen kulan uu doonayay inuu salaadiinta beesha Habarjeclo uu la yeesho oo kaga hadlo xaaladda xilligan khilaafka ay xisbigiisa talada haya ee kulmiye ka taagan warka siyaasadeed ee xilligan wixii la isku oran jiray sheegaanta ee beesha Habarwal iyo beesha Habarjeclo ayaa guud ahaan u muuqata mid imaka meesha ka sii baxaysa oo ay tahay mid iyadoo xilligan isu soo hub urursan